markale isku soo noqod wanaagsan halkani waa Zack Films fadlan haddii ay markii ugu horeysay aad soo boqonayso channelkan inta aanan muuqaalkan u gudgelin waxaan ka codsanayaa inaad subscribe noo saarto channelka sidoo kale muuqaalka aad like noo saarto aad iyo aad mahadsantahay kani waa Arif tanina waa Chiku waa lamaane ku leh dukaan lagu iibiyo rogaga gudaha magaalada Istanbul maalin ayaa Arif saaxiibkiisa qadiimiga ahaa Logar iyo kalkaaliyihiisa ayaa imaaday dukaanka isagoona muujinaya in wax la yaab leh uu ku arkay meel u dhoweyd si kastaba markii ay gaareen goobta Logar ayaa xirxiray Arif waxaan ogaanaynaa in waxa soo dhan ay ahaayeen qorsho si uu u hanto xaaskiisa intaa waxa dheer inuu isticmaalay qalabka waqtiga oo ah mid horumarsan iyo kuwa kale isagoona isku rigay qaabka Arif si qorshihiisa u hirgalo inta kadib Logar kalkaaliyihiisa ayaa daaray mashiinka isagoona u diray 1 milyan oo sano ka hor Arif ayaana soo gaaray waqtigii loo soo diray halkaas oo wili dinosaurka ay ku nool yihiin isagoo ka cabsanaya goobtan cabsida badan ayuu ku soo dhaxdhacay daanyeero iyagoona wax dhib ah u geysan isaga ayaa la noolaaday sidoo kalena wax baray isagoona rajeynaya in ay kobci doonto maskaxdooda maalmihii ayaa isku bedelay bilo xilliga qaboobaha ayaana la gaaray markaasoo Arif uu u baxay si uu naftiisa ugu raaxeeyo isla markiiba kaadidiisa ayaa barafowday isagoo adeegsanaya heerkulka aadka u hooseeya ayuu guri ka dhistay nasiib darro bilooyin badan oo waxbarasho ah weli daanyeeradu ma muujin wax isbedel ah tani ayaa ka dhigtay Arif inuu xaqiiqsado inaysan guriga dib ugu noqon doonin haddii uu sii wado in uu la noolaado daanyeeradan sidaas awgeed wuxuu dhex galay keenta si uu u helo dad intuu wadada ku jiray wuxuu la kulmay dinosaur aad u ciyaaya aad ayuu u cabsaday laakiin wuxuu arkay inay tahay hooyo ilaashanaysa ukumaheeda Arif ayaa markiiba la hadlay isagoona u sheegay in uu ka fogaan doono halka dinosaurku u riyaaqay waxaana la siiyey buul malab ka buuxo isagoona ka gudoomay laakiin isla markiiba shinni xajmi weyn ayaa soo muuqatay oo xanaaqsan miciyaha ayayna la soo baxday Arif ayaa cagaha wax ka diyay kadib wuxuu ku dhuntay geed weyn hoostiisa markaas ayay madaxa ka gelisay mici isagoona miyir daboolmay intaa kadib markuu indhaha soo kala qaaday wuxuu arkay laba nin oo durjoog ah oo saaran geedka dushiisa balse inta uusan dhaqaaqinba raggii ayaa suuxiso ku dhuftay intaa kadib Arif ayaa ka soo kacay god ay ka buuxaan rag durjoog ah iyagoona iska soo horjeeday waxay ka cabsanayeen Arif waxayna qorsheeyeen inay dilaan nasiib wanaag Arif ayaa ku hadli kara luqadooda isagoona ku qanciyay Dimi hogaamiyaha qabiilka inuu ka imaaday mustaqbalka dhibaatana uu ku ahayn si kadis ah nin ayaa ku dhawaaqay in ay soo galeen waxaan ogaanaynaa in Arogiyanku yihiin qabiil kale oo hogaamiyo nin lagu magacaabo Karga waxay muddo dulminayeen Dimis qabiilkiisa markastoo soo booqdaana waxay garaacaan ragga iyagoona ka dhaca cuntadooda markan Karga wuxuu u yimid si uu u kaxisto saddexda nin ee ugu awooda badan qabiilka Arif ayaana laga dhigay mid ka mid ah kadib markii uu diiday Karga ayaa suuxiso ku dhuftay isagoona u qaatay tuuladiisa inta ay wadada ku jireen mid ka mid ah oo lagu magacaabo Tasu ayaa shil galay madaxa ayuuna ku dhuftay dhagax weyn faraska ayuuna ka dhacay isagoona gacanta ka jabay xanuun ayuu la oynayay halka Karga bilaabay inuu aaso sidii inuu dhintay oo mar hore ka soo kacay suuxintaanka ayaa la fajacay arrintan isagoona faraha la galay wuxuuna u sheegay kooxda in Tasu uusan weli dhiman laakiin kaliya gacantu ka jabtay isagoona kab u sameeyay si la yaab leh Tasu ayaa gacantiisa dhaqaajiyay isagoona Arif uga mahad celiyay badbaadadiisa kadib markii ay gaareen tuulada waxay arkeen in tuulada xukumo wiilka uu adeerku u yahay Karga kaasoona ah Tasu aabihiisa Karga ayaa weydiiyay Tasu waji xirka uu ka soo helay Tasu qolkiisa Tasu ayaa u sheegay inuu ka samaystay geed Kaliya ayaana ka xanaaqay arrintan wuxuuna rabaa inuu canugiisa noqdo dagaalyahanka qabiilka Kaliya ayaa sheegay qiso dhacday yaraantiisa taasoo ku dhacday aabihiisa Kumo maalin markab shisheeye ayaa ka soo degay samada kaasi oo ay saarnaayeen laba nin oo shisheeye ah Kumo ayay siiyeen kubad hadiyad ahaan waxayna dib ugu noqdeen markabkooda nasiib darro Kumo oo rabo inuu u mahad celiyo ayaa ka daba orday mashiinka markabka ayuuna ku gubtay maalinkaas wixii ka dambeeyay Kaliya ayaa nacayb u qaaday waxyaabaha cusub iyo weliba casriga maadaama uu aaminsan yahay in aabihiisu joogo samada wuxuu dhisay tower dheer dad badan ayaana isku dayay in ay fuulaan si ay dib ugu soo celiyaan Kumo laakiin qofna kuma guuleysan waxay u muuqataa in Karga saddexda nin uu ugu soo waday Dimis qabiilkiisa si ay u fuulaan towerka Arif ayaa codsaday inuu isagu fuulo si tartiib ah ayuuna u fuulay isagoona ku guuleystay inuu tago qaybta sare wuxuu kala kulmay nin uu u maleeyay inuu yahay Kumo Arif ayaana qorsheeyay inuu keeno dhulka laakiin cabsida ka muuqatay ninkii ayaa sababtay inuu dhaco intaa kadib Arif oo walwalsan ayaa si tartiib ah ugu soo degtay qabiilka Arogiyanka ayaa la yaabay in ay arkaan in qof nolol kaga soo noqday towerka iyagoona dabaal degay halka Kaliya ka careysan yahay inuu aabihiisa u keeni waayay si kastaba uu iska cafiyay Tasu ayaa sidoo kale u qariyay Arif geesinimadiisa isagoona ku sawiray dhagaxaanta Arif ayaa ku amaanay farshaxankiisa sidoo kale wuxuu arkay sawir qarsoon waxaana ku sawirneed gabar lagu magacaabo Mimi oo ka tirsan qabiil kale waxaan ogaanaynaa in Tasu uu ku dakhran yahay tani ayaa Arif xasuusisay xaaskiisa Chiku isagoona Tasu ka codsaday inuu u keeno dhammaan qalabka la heli karo si uu dib ugu noqdo waqtigiisa Tasu ayaa u sheegay inay macquul ahayn maadaama aabihiisu Kaliya isugu ururiyay god isagoona ku xiray wuxuuna mamnuucay in la isticmaalo Arif ayaa u ballan qaaday inuu u keeni doono Mimi Tasu ayaa ogolaaday isagoona ballan qaaday inuu ku caawin doono sidii uu heli lahaa alaabta habeenkii xigay waxay soo aadeen godka iyagoo raadinaya alaabta nasiib darro
waxaa arkay Karga isagoona u geeyay Kalia sida la filayay. Kalia ayaa la niyad jabay inuu wiilkiisu noqday tuug isagoona ka buriyay tuulada, taasoo oo caraysan ayaa qabiilka kala tagay Arif. intaa kadib iyagoo socda keynta ayay kusoo beegmeen Mimi iyo saaxiibadeeda oo ku qabaysanaya webiga. Mimi ayaa cadow la ah taasoo taariikhda iyo qabiilkiisa awgeed, laakiin Arif ayaa bedelay aragtideeda isagoona tusay sawirka ku sawiran dushiisa. Kooxda ayaana dib ugu noqdeen tuulada Dimis. Arif ayaa shaaca ka qaaday qorshihiisa ku aadan inuu bilaabo ilbaxnimo cusub, isagoona u sheegay Dimi in kumanaan qalab la isticmaali karo ay yeelaan Kalia godkiisa, wuxuuna ka codsaday inay ku caawiyaan sidii uu soo xadi lahaa qalabkaasi. rabitaankooda ku aadan horumarka iyo weliba teknolojiga. Dimi qabiilkiisa ayaa ka helay qorshaha. Habeenkii xigay Arif iyo Tasu ayaa dib ugu soo noqday godka iyagoona gareeto ku soo qaatay dhammaan qalabkii lagama maarmaanka ahaa. Dadka tuulada ayaa ku caawiyay sidii loo geyn lahaa gareetada tuulada isagoon waqti iska lumin. Arif ayaa bilaabay sidii uu samayn lahaa dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah tuulada. bilooyin kadib tuuladii ayaa noqotay mid horumarsan. Arif dartiisa waxay noqdeen kuwo nolosha u fududaatay sidii inay sanado badan kasoo gudbeen oo kale. Dumarka ayaa hadda wax karin yaqaana halka carruurtu iskuul ay aadaan. Arif ayaa lagu dhawaaqay madaxa tuulada, laakiin kuma faraxsana maadaama uusan wax isbedel ah ka arkin caqliga dadka. dhinaca kale Kalia ayaa soo ogaaday in Arif iyo Tasu ay dhaceen godkiisa isagoona u soo diray adeerkiisa Karga si loo dilo. kadib markii ay soo gaareen tuulada wuxuu arkay isbedelka tuulada isagoona si degdeg ah ugu sheegay in ay isaga u xiran yihiin, laakiin Arif ayaa yareystay isagoona dadka hortooda ku liiday. Tani ayaa ka caraysisay Karga isagoona ballan qaaday inuu la soo noqon doono ciidamadiisa si uu u arguto. maalin Arif ayaa Tasu, Mimi iyo kuwa kale u kaxeeyay duurka. kadib markii ay soo noqdeen waxay arkeen in tuuladii la boobay. waxay u muuqataa in Arogyanku ay wax waliba ka qaateen tuulada dagaalkan ka dhex qarxay awgiis. Arif ayaa u tagay Kalia isagoona kula heshiiyey in 6 nin ay kubadda cagta la ciyaaraan. haddii uu guuleysto Kalia wuxuu soo celin doonaa dhammaan alaabtii uu qaatay, laakiin haddii laga guuleysto wuxuu u dhisi doonaa tower dheer si dib loogu soo celiyo aabihiisa. Kalia ayaa aqbalay qorshahan hadal la'aan. waxaan ogaanaynaa in Arogyanku ay kubadda cagta ciyaarayaan tani iyo intii aabihiisii u geeriyooday. Kalia wax dhibaato ah kuma qabo in uu samaysto koox isagoona soo xushay ragga kuwa ugu caqliga badan, ugu xooga badan iyo weliba kuwa ugu fiican ciyaarta, halka Arif ku mashquulsan yahay sidii uu ku heli lahaa ciyaaryahan. nasiib darro xitaa mid ka mid ah weligiisa ma maqlin wax lagu magacaabo kubadda cagta. Mimi ayaa sheegtay inuu jiro nin Arogyan goolhaye hore ah kaasoo lagu magacaabo Kuhara. waxaan ogaanaynaa in Kuhara ka fadhiistay ciyaaraha kadib markii laga dhaliyay 8 gool oo isku xigto, la mid ah sidii Bayern Munich ay ku samaysay Barcelona. Arif ayaa isku dayay inuu ku qanciyo inuu ciyaaro, laakiin wuxuu ka diiday go'aankiisii. kadib Dimi ayaa go'aansaday inuu noqdo goolhayaha kooxda. xogaha kadib Arif iyo Tasu ayaa noqday weeraryahano halka inta kalena la kala xushay. intaa kadib Arif iyo kooxdiisa ayaa bilaabay inay si adag u tababartaan, halka Mimi iyo gabdhaha kalena ay sameynayeen maaliyadda kooxda. maalmo kadib Arif iyo kooxdiisa ayaa laacibiin noqdeen. maalinkii ciyaarta ayaana la gaaray. kooxda Arogyanka ayaa hogaaminaysa ciyaarta iyagoona dhaliyay haafkii ugu horreeyayba 4 gool oo qurux badan, balse inta aan haafka la bixin mid ka mid ah kooxda Arif ayaa ku guuleystay inuu dhaliyo 1 gool isagoona si khaldan u dabaaldegay, wuxuuna ku dhacay dabka hoose. wadatashigai kulankii xigay Arif ayaa sheegay inuu yahay alien ka yimid meero kale, leeyahayna awood dheeri ah, laakiin ilaa hadda uusan isticmaalin awoodiisa si uusan qofna ugu waxyeeleynin, laakiin hadda loo baahan yahay inuu isticmaalo isagoona dhowlato sameeyay. ciyaarta ayaana bilaabantay halkaasoo Arif soo bandhigay awoodiisa isagoona dhaliyay 3 gool, laakiin Tasu ayaa la dagaalay mid ka mid ah Arogyanka taasi oo ku sababtay in loo dhigay penalty, laakiin Dimi ayaa ka qabtay taasoo ciyaarta ka dhigtay 4 iyo 4. nasiib darro gacanta ayuu ka dhaawacmay ciyaarta ayuuna sii wadan waayay. hadda ma haystaan goolhaye. Kuhara ayaa horey u soo baxay isagoona go'aansaday inuu ciyaaro, wuxuuna noqday sidii dhagax aan la jebin karin oo kale isagoona qabtay wax kasta oo lagu soo tuuro. daqiiqadihii u dambeeyay Arif ayaa hawada galay isagoona ku tuuray kubad xoog badan, taasi oo noqotay mid ay ku badiyeen. Kalia ayaa ku amaanay guushooda isagoona u sheegay inuu ballankii ilaalin doono, sidoo kalena faraha uu ka qaadi doono qabiilka hadda wixii ka dambeeya. intaa kadib Arif ayaan faraxsanin isagoona ku fikirayay in Logar xilligan ku tagay xaaskiisa, balse inta uusan bixin ka hor wuxuu saacadiisa siiyey Tasu iyo weliba fargalkii meherka Mimi. si dhaqsi leh iftiin ayaa soo muuqday halkaasoo Chiku ay ka soo baxday. Chiku ayaa u sheegtay in markuu ka soo baxay Logar ay internetka ka aragtay saacad iyo fargal ay cilmi baarayaal ka soo heleen god dhexdiisa, taasoo jirtay 1 milyan oo sale. kadib baaritaan dheer oo ay ku samaysay saacadda iyo weliba fargalka waxay ogaatay inuu Arif lahaa iyo weliba in Arifka la jooga uu yahay mid been abuur ah, iyadoona qori ku qabatay Logar si ay u ogaato halka uu joogo ninkeeda. waxayna adeegsatay mashiinkii Logar iyadoona sidaasi halkan ku timid. kadib lamaanaha ayaa macsalaamiyey dadka
dadka tuulada iyagoona dib ugu noqday waqtigooda. intaa kadib markii ay tageen waqtigooda waxay tuulada usoo direen Logger. dadka qabiilka oo u malaynaya inuu yahay Arif ayaa si wanaagsan ula hadlay, laakiin Logger oo caraysan ayaa si xun ula hadlay. iyaga ayaana ogaaday inuu yahay midkii been abuurka ahaa. Kalia iyo kuwa kale ayaa sidoo kale xaqiiqsaday inuu ahaa ninkii watay markabka sanado badan ka hor ee dilay aabihiisa. filimka ayaana kusoo dhammaanaya iyadoo dadka qabiilka ay ku socdaan dhinaciisa, laakiin inta aysan wax yeelin dinosaur ayaa soo muuqday kaasoona ku baashaaray Logger. magaca filimka waa midkan hoos ka muuqda. waxaan aad iyo aad kaga mahad celinaya inaad soo gaartay dhammaadka muuqaalkan. waxaan mar kale kaa codsanayaa inaadna taageerto subscribe, sidoo kalena muuqaalka aad like saartid. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiga, sidaas iyo nabadgelyo.